Quraanka Kariimku waa kalaamka Alle oo dhameystiran. Wax kasta oo ku qoran kutubka Quraanka waa hubaal inay xaqiiq yihiin, shakina aan la geli karin. Dadka aaminsan Baybalka ama diinta Kirishtaanku waa ay beeniyaan si ay kooda ama buugga Baybalka oo ay aaminsan yihiin ay dadku uga dhaadhiciyaan inuu xaqiiq yahay. Haddaba waxaa dhowrkii sano ee u dambeeyay soo baxayay warar lagu farxo oo markii ugu horeysay ay ku dhawaaqaan dadka aaminsan Kirishtaanka. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa garansiiyay inay maanta isla qiraan inay saxan yihiin wax kasta oo ku qoran kutubka Quraanka Kariimka. Daawacad ay soo saartay jaamacadda Harvard University oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn dunida uguna caansan oo ay leeyihiin reer galbeedku, waxay qirtay kutubka Quraanka Kariimka inuu yahay midka cadaalad oo dhan ay ku kooban tahay. Haddii aan si kale u dhigo, kutubka ugu saxan oo wax kasta oo ku qoran ay hubaal yihiin waa kutubka Quraanka, ayay tiri Harvard University. Taasi waxa uu macnaheedu yahay in islaamnimadu ay tahay mid saxan. Inkastoo anagu haddii aanu islaam nahay aan wax kasta horay u ogeyn, haddana waxaa cajiib ah in dadka sidaa leh oo aaminsan in kutubka Quraanka Kariimka uu saxan yahay inay yihiin dad aan ahayn muslim oo diimo kala haysta sida Kirishtaanka oo kale. Laakiin waxa ay uun xaqiiqda ka sheegeen runta meesha taal oo aan lagu gorgortamin. Jaamacad inta badan ardayda dhigataa ay tahay Kiristiyaan, macallimiinta iyo maamulkuba ilaa dalka ay ku taal xataa uu yahay dal Kiristiyaan ah, inay qirto maanta islaamku inuu yahay midka ugu cadaaladda badan, waxay wax badan ka taraysaa dadka fikirkoodu iyo jihadu ay ka qaldaneen. Markaana waxay garansiin kartaa in muslimnimadu ay tahay midda lagu badbaadayo. Haddaba haddii sidaa ay tahay oo ay aamineen in kutubka cadaaladda, xuquuqda iyo bini'aadanimada uu yahay kutubka Quraanka, maxay u rumeen? Taasi waa su'aal in badan dadku ay isweydiiyaan. Ninkan oo lagu magacaabo Goethe waxa uu ahaa gabya iyo taariikhyahan aad looga yaqaano galbeedka dunida. Waxa uu dhashay dalka Jarmalka, waxaana loo yaqaan Shakespeare Goethe. Buugaag uu qoray oo dhowr ah, mid ka mid ah ayuu kaga hadlay islaamka. Waxa uu yidhi, haddii aanu reer galbeedku nahay, waxaan afkaar hayno haddaan isku darno, midayno, oo aan koobno ma gaarayno inta uu Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu gaaray. Waxa uu yidhi, waxaan isku dayay inaan baaro qof aan adduunka oo idil tusaale uga dhigo. Waxaanan helay in uu Nebi Maxamed uu noqdo qofkii aan bini'aadamka tusaale uga dhigi lahaa. Cajiib, ninka sidaa leh waa Kiristiyaan. Mar kale, James Gaffin oo Maraykan ah ayaa waxa la weydiiyey basharkii ugu mudnaa ee dunida soo maraa. Waxa uu yidhi, isagoo aan ka labalabayn, Maxamed, Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Ilaa dhowr filosofi oo reer galbeed ah waxay qireen nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee inuu ahaa basharkii ugu runta badnaa, cadaaladda iyo naxariista badnaa ee caalamka soo maraa. Haddana may raacin diintii islaamka ee uu xambaarsanaa.